لكن إن قرال الله صار bulshooyinka ku sheegan maynan ahaan jirin بالعكس adduunweynuhu marka uu wax inaga qorayo inaga wuxuu inagu naanaysaa qoomkii ahaa afmaalka ama gabayga iyo suugaanta iyo ku xeel dheeraa xagga odhaahda adduunku marka ay carabi iyo cajaba inoo timi waxay inagu tilmaantay inaynu nahay dad hadalka ku xeel dheer tix iyo tiraaba ayay inagu sheegeen laakiin inaguma ay sheegin dad xagga qoridda dhigaalka iyo warqad iyo qalin ku sheegan dhan markaad ka eegto arrintaasi qoraal la'aantu ama akhris la'aantu marka bulshooyinka caalamka la qiimeynaya waxaan la yiraahdaa human capital development ama karaanka aadamaha heerka aqooneed ee bulshadu ay leedahay oo laga soo bilaabo inay literate ama wax qori karto ayaa laga soo bilaabaa waxaan rabaa markaa bandhigan ahmiyadda siinaya qoraalka iyo akhriskaba iyo buugaagta inaan marka u horeyso uga mahad celiyo mas'uuliyiinta kala duwan ee uu diini ka mid yahay iyo ragga iyo hablaha kale ee ay volunteers ugu mudan yihiin ee arrintan suurto geliyay waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ah uga mahad celiyo kambaniyada Soomaaliyeed baa mushtariga Soomaaliyeed ee arrintan ku garab istaagay dhalinyarada Soomaaliyeed arrintan ka shaqeynaysa anigu ma soo gaarin xilligii kacaanka iyo waa dewan jiray laakiin nin weyn oo ciidamaya ma ahayn waxaan se maqli jiray heeso la qaadi jiray oo la leeyahay afqalaad aqoontu miya oo si talantaare loo qaadayo ay qaar jawaabayeen oo leeyihiin maya maya maahe hadba qofba waa intuu ee bigasha maanta in aan meel aanan soo dul istaagin meeshii bugaagta lagu iibinayo ma jirin ama lagu soo bandhigayay waxa aad ii xiiso gelisay dhaqan cusub oo la turjumayo aqoonta adduunka ka jirta waxaan rabaa dhalinyarada halabuurka la timi inaan run ahaantii aad u bogaadiyo aqoonta waxa la yiraahdaa waa kayd aadamahoo dhami uu wada leeyahay oo ilaahay uu ku galladay haddii Scandinavian ama Asia ama South America maanta aqoon uu ilaahay ku ilhaamiyay dadka waa muhiim aqoonta dhaxalka u wada aadamaha oo dhan inay dadka Soomaaliyeed soo gaadho ama xag caafimaad ha noqoto ama xag teknolojiyad ha noqoto ama xag taariikh la raad raacayo ha noqoto dhowr buug oo aad ii cajab geliyay baan ku soo arkay waxaan arkay gabdho da'yara oo Soomaaliyeed oo ka hadlaya jannada iyo jagada halka waxaan u fahmay halkii sida la isku waafajin lahaa inaad ifkana nolol cizi la ku noolaato aakhirana saa janno u geli lahayd waa gabadh yar oo Soomaaliyeed waxaan soo arkay dhalinyaro turjuntay buugaag iyo kuwa qorayba waa maxay xiriirka ka dhaxeeya shaqadan ay hayaan bulshada Soomaaliyeed labeenteedu iyo waajibaadka dawladda saaran baan rabaa inaan qodobka dul istaago xukuumadan dan qaran ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ay garwadeenka ka yihiin si waxa la oran karaa waa xukuumad ku tilmaaman xagga qoraalka aqoonta iyo tacliinta ra'iisul wasaaruhu in badan buu macallin soo ahaa waa laga yaabaa halkan inay joogaan dhalinyaro oo macallin u ahaa oo maanta kaalin qaada madaxweynuhuna in inta ka badan 40 sano iyo in ka badan ayuu bahada waxbarashada ku soo jiray aniga naftarkaygu bari baan kaaliye macallin ahaan jiray waan iska sheegan lahaa hadda doctor baan haywan oran lahaa laakiin in badan baa iiga dhiman inaan macallinnimo sheegto waa shaqooyinka ugu sharafta badan
nin dalka Gaana ka yimi oo macallin ii ahaan jiray baan waxaan ku yiri warniyo maxaa aroor walba ku suurto geliyay intaad soo kala lahdo 30 sano inaad kalaaskii uun maalin walba dhigto miyaanad ka daalin ninku nin Afrikada in Ilaahay uu samata bixiyo aad u jecel buu ahayo wuxuu yiri waxaan ku tala jiraa markaan sanadkii wax dhigo oo dhowrka bilood ee 4 term 3 term buu kala qaybsan yahay aan dhowr boqol wax u dhigo in 5 qof oo Afrikaanka badbaadiya ay ka soo baxaan ayaan ku saaxiibay marka boqolaal qof uu wax baraya 5 qof oo Afrikadii caawiya African Studies buu dadka bari jiray ayaan ku rajo weyn inaan soo saaro bulay labeenta maanta halkan fadhida ee dhalinyarada ah ee ama wax qortay ama buugaagtaas u soo mataqaana banbaxday haddii aan macallin wax bari lahayn shirkani macna uma yeesheen waa sababta dawladdan xukuumaddan dan qaran ay 6,000 oo macallin u qaadatay waa markii u horeysay ee dawlad Soomaaliyeed ay mushahar mug iyo miisaan la siinayso macallimiin ومعلمين كهولجلي دونا دمان دولك الصومالية ومعلمين كهولجلي دونا دولك الدوان لقى حرية خوارجته وأنا أرضيده حتى ملعمده بكدوميا ما لها قارة أنا يوها يسمى فرصة إني وحبرتان وحربنا نكسو قنانا ده حكومة الدلال كاسي سمايسي ربهانتي اللي ترسبت صوماليا tobankii sano u dambeysay khaasatan sanadada dambe labada sano dambe aad buu u soo yaraanaya wax kalena ma aha ilaa tacab la geliyo oo macallimiin la qaato oo iskuulaadka la kordhiyo oo kharashaadka waxbarashada lagu bixinayo la kordhiyo jahliga iyo aqoon darradu inaga hadhay mayso waxaan rabnaa inaan saddex shay isbarbar dhigno adduunkan aynu ku noolnahay waa adduun ku jaan go'an qarannimo ku jaan go'an yahay waxaa loo baratamayaa oo loo loolamayaa dalba dalka kalu la tartamaya iska caabinaya rabaa inuu ka faa'iidaysto waxaan hadda ka socdaa magaalada Bujumbura Burundi rag dalka u dhashay baa Soomaaliya iman jiray oo joogi jiray oo ciidamada amisan ka mid ahaa oo oran jiray Soomaali baan kala qabanayna badbaadinayna anigu aqoon badan dalka uma aan lahayn shoo holac keenna ka daran bay soo mareen waaban yaabaya warninka qoryoolay jooga ee halka difaaca ka galaya ee Burundi ka yimi maxaa soo kalifay baad soranaysa waaya adag iyo colaado kuweenoo kala ah bay Rwanda soo martay Burundi soo martay Uganda soo martay Ethiopia soo martay dalalka aan colaado baahanin ka qarxin Kenya baaba ka midaba geeskan aynu ku naalno iyo Djibouti laakiin way soo kabteen waa kuwa ciidamada amisom iyagoo ka tirsan dalka joogi jiray inkastoo hadda intii hadda aynu joogno xukuumadani 22,000 ayaa amisom ahaan jirtay hadda 10,000 waa lagu soo koobay nin walba oo ajnabi ah oo la bedelay yaa bedelay wiil Soomaaliyeed oo berri aanu rabno markaynu dalkeena sugno dibad inuu intuu tago u gurmado kuwa inaga ayaan ka daran ilaahay uga baryamayna inay qolooyin kalena duruuftan oo kale maraan laakiin dalkii in badan oo idin kamid ah wax ku soo barateen ee Suudaan la oran jirayba watan qalalaasi hadda uu ka dilaacay ilaahay nabad ha ku soo dabaalay walaalihiin waxaan misaalka u soo qaatay shirweynaha Komesa suuqweynaha Afrikada dhexe ayaanu ka qayb galaynay waxa jooga dalka Egypt iyo South Africa waa labada dal ee ugu warshadaha badan warshadana waxay ku shaqeeyaan aqoonna buug bay ku qoran tahay oo tii afka la isaga sheegay inaguma filna wasiir walba iyo qof walba kula fadhiistay wuxuu leeyahay Soomaaliya maxay soo saartaa maxay xirfad leedahay warshad noocee baanu ka furi karnaa
xirfadley noocee baa joogta marka waxaan la yiraahdo foreign direct investment la maalgelinayo dal waxa la eegaa dad dalkiisu ay waxna qoraan waxna akhriyaan oo inta la tababaro warshadaha ay ka shaqeyn karaan ama ay maamulin karaan oo maareyn karaan laakiin haddii dadkii iyo dunyada aan waxba isdaamin oo aqooniba aanay jirin cidina maalgashan mayso dadaalkaas xukuumaddu wuu calaamadsan yahay human capital development kobcinta karaanka dhalinyarada da'yarta Soomaaliyeed oo aayaheena ah dhinacafinta ka bacdi kharash badan baa la gelinaya waxbarashada kaliya ma caafimaadka waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado bulsho bed qabta ma noqon karno haddii hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo waalidku iyo bulshada miyiga ku nool aanay aqoon u lahayn ku filan caafimaadka aqoontu ma la rabo inay wax qalaan oo ay operation fuliyaan laakiin waxa la rabo inay ka hortagi karaan cudurrada faafa ee adduunka laga dabar gooyay ee weli dadkeena qaarleynaya hooyo aqoon leh halkan gabdho fara badan baan ku arkaa oo dadaalaya oo mar haddii halkan yimaadeen aqooni uma dhibna waa dadkii berri soo saari lahaa ubad aqoon leh aqoon la'aani baa leeyahay waa iftiin la'aan aqoon oo dhamina waxay ku soo ururtay buugaag iyo wax soo saar idinkoon taageero badan dawlad ka haysan idinkoo xaalad adag ku shaqaynaya in press la sameeyo niman baan arkayay meel walba Soomaaliya ka yimi iyo gabdho oo leh dhuusamareeb Hargeysa meel walba arrinta aad baan u soo dhaweynaynaa waan idinka mahadcelinaynaa golihii wasiiradaanu ka soo baxnay haddana shirar kale ay sugaya laakiin waan ka baaqsan kari waayay in intaasoo dhalinyaro ah oo hilowga u qabta aqoonta annana intaanu u nimaadno farxadda iyo jawiga horu socodka ah ee aqoonta ku dhisan la qaadanno ayay nala ahaatay aad iyo aad baan idin salaamaya waana idin hambalyeynaya